waxaan leeyahay maanta beenkii sheega nacla ku yaal xalay waxa dhageystay qodadii madaxweynaha uu ka jeediyay Boorame aad iyo aad baan hadallada ku jiray qaar kamid ah ayay aniga iga degweydaan oo la yaabay waxa kamid ahaa gobolada bariga aqoonimo taale buu madaxweynuhu waxaan idin sheegay wax kasta oo Ilaahay abuuraa ama falsafad kasta oo cilmi ah aabay leedahay aabe hooyo iyo aabba labadaba way leedahay waayahay waxa jira laba cilmi oo adduunyada ka jira cilmi Ilaahay baa keenay waa quraanka علمي إلهي بقى كان هو حديثه رسولك يا قرآنك إلهي بقى كان كا إيش شيء كرتنا ما شفت لكن أقوم بلاد سمايو يا كان سوماليا لأن هي سوماليا بس قدر يا كاني كيس كأفريقيا يا كاني ما قبلها برا كاني بس قبلها قلبيات بقى كاني ما كسر لوردو لما دحوينا هنا كلا قبلية وبقال بريا قلبيات لو كلا سارة أنتيس صور هانه أقوانتن وحهوية يا بابا أوها haddaanu madaxweynuhu garanayn oo haduu diidayaba haddaanu garanayn iyo haduu diidayaba aabaheedna waxa weeyaan maxamuud axmed cali hooyadeedna waxa weeyaan xaaji muxuu ahaa xaaji aadan qabile weeye xaaji aadan qabile weeye markii ay tacliintii aabba iyo hooyaba waxa uu ah gobolada bari yaa dhisay jaamacadda Amuud marka galbeed baa dhisay bisaree bara dhisay maxamuud axmed cali ayaa dhisay aqoonta bini'aadamka maadiga halkan lagu haysto baray ka timi wax kasto adduunyada Ilaahay abuurto la iskuma qabsado haday tahay tacliin haday tahay caafimaad haday tahay aqoon kale bini'aadam barto bini'aadamku aqoonta wuxuu ka bartaa macnaha waa la isku tixgeliyaa ee la iskuma qabsado afqaraad aqoontu miyaa hees baa ahayd aqoonta miyaa la iibsan karaa cali sugulle haddii aad aqoonta iibsan karayso وموسى بحماية كقط بدينا قبري أقوى تهالو غير قلبيت بيفسن لها رنتها وناكسن تاوها كم رخاتي عالمك يدو لبي وقتها عمود واحد يسيح محمود أحمد علي شبو كسمي يقولي بس لو يسوق الصومال بس قبصنا يسوق يسوق قبصنا هذا التاريخ ده إدي جامعة دارستي كدم بيسي هندستي شبو كسمي وارك قرنتي محمود أحمد علي marka waxa weeyaan hadii aqoon waxa ogtiin waxaan leenahay anigu faari ma yorta laakiin aqooni bari taala qalbeed aqoonimo taali wax kala yaala laakiin waxa kale anigu odayaal suldaana baan aho dadkayga weeyaan sida anigu waxba kala qolayn maayo goboleedu waa soo kaymid laakiin kelmadda meel ka dhaca ee horena madaxweynuhu yiri xilligii dagaalkii loo diyaar garoobayay khaliijka ayuu wuxuu yiri ninkii loo jiray janaal ninkii loo jiray madaxweynihii waqtiga talinaya Bush ayuu carabta wax ku sheegay dadka geela fuula marka ma fuulimaadka moodaysan uu sheegaya waa wax kale ee kada wuxuu yiri dadka geela fuula waa kelmad Soomaali Soomaa isagu marka qofkii maartay aqoontiisa ay gaabantay wuxuu qaadanaya qofka geela fuula awrta fuula laakiin isagu wax kale ayay uga jeeday madaxweynuhu xilligii ololahaba wuxuu yiri waa niman isdila oo geel iyo balaay wax waleeta iyo qoryasita aqoonna male dalkan way ka hadheen laakiin dadku madaxweynaha iyaga doortado dambigoodii weey anigu saasaan ku leeyahay waa dambigii bini'aadanka sababta bulshada xun ayaa qofku xun ka soo dhaxbaxa qof wanaagsani bulsho wanaagsan oo caafimaad qabta wali kama soo baxo aad iyo aadna waa salaamantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh